dowladda hoose ee Garowe ayaa soo bandhigtay lacag dhan $96,234. Lacagtan waxaa laga ururiyay dadka isticmaala adeega korontada iyo biyaha oo biilashooda $1 loogu daray oo ah ka qayb qaadashada horumarinta caasimadda Puntland. runtii waxay lahayd taariikh adag waxaan rabay inaan sheego oo si gaar ah aynu ugu mahad celinno fikradana ugu calaamadino xildhibaan Axmed Abshir oo ahaa ninkii fikirkan keenay haddana isaguna idin sheegay fikirkaas oo ah fikir aad u wanaagsan golaha deegaanka la qaatay waxgaradka oo ismadu ugu horeeyaanna ay taageereen shirkan oo kala ahaa oo lagu qabtay hotelka New Race. fikirkan waxaa keenay xildhibaan Axmed Abshir Bakuuke oo ka mid ah golaha deegaanka ee Garowe waxaana ansixiyay golaha deegaanka ee Garowe. Anu wada xusuusataan waxaan ahay ninkii la tartamay gudoomiyaha hadeer duqa magaalada Garowe barigii tartanku dhamaaday waxaan labadayadu aan tartanay waxaan filayaa 29 August 2018 bay ahayd waxaan ballan qaaday inaanan golahana ka baxayn lana shaqeynayo maayarka wixii fikrad iyo aqli markii aan la ordayna aan isaga ku biirinayo soo degmada wax ugu qabto fikradihii markii aan hayaba waxa ka mid ahayd arintan caawa in halkaan u joogno golahan ka dhex sheegay runtii markiiba xildhibaano saaxiib aan nahay ba arintii igu soo bogareeyay ajandaha lagu daray waxayna noqotay in golihii isla qaatay in adeegyada markaas labada shirkadood oo Nexum iyo Nawako la saaro qofka biilka bixinaya biilkiiba in la saaro $1 caawa annagu halkan waxaan ka mid nahay labada shirkadood oo wixii ay ururiyeen caawa soo bandhigaya kuna wareejinaya cidii ay khuseysay oo ah guddiga horumarinta caasimadda golaha deegaanka Garowe ee ansixiyeen shirkadda Nawako waxay wareejinaysaa caawa 46,676 oo doolarka Mareykanka ah. Anagoo mar walba dadka u marinaynay backgroundkii waxaan taariikhdii iyo say ku soo bilaabantay inaysan ahayn waxa anagu iska qaadanayno waxa xusid mudan shirkadda neeg barnaamijkan waxay dhaqan gelisay xilli dambe shirkadaha waxaan u maleynayaa bilowga sanadka bay ahayd in barnaamijka la bilaabo anaga May bishii shanaad bay bilaabatay lacagtan cadadka waxaan u maleynayaa maamulaha lacagta wareejin doona gacanta ku haya almost 46,000 iyo dhuruqyo inay tahay baan rajaynayaa. guddiga sanduuqa horumarinta caasimadda Puntland waxa ay kala wareegeen shirkadaha biyaha iyo korontada mid walba lacagihii ay macaamiishooda ka soo ururiyeen. guddiga horumarinta magaaladu wuxuu ka kooban yahay dad u istaagay horumarinteeda marka ay arkeen waxyaalo tiro badan oo ka maqan guddigaas isaga waxay ka kooban yihiin dhaqaatiir injineero aqoon-yahano kale oo iqtisaadka iyo xeelankaasa ganacsato iyo shirkadaha waaweyn oo magaalada waxaanu jirnaa waa hal sano iyo bar oo aan intaas ordaynay aanu raadinaynay mataqaanaa inaanu wax ku oola magaalada aanu soo gaarsiino shirar tiro badan baan u qabanay si arrintaas iyada ay u hirgasho waxaad moodaa miraheeda u horeeyay caawa inay meeshaan ka dhasheen waa waxaanu wada sugaynay miraheedina aad iyo aad waxaan ugu mahadinaynaa labada shirkadood oo waaweyn oo magaalada tan joogta sida ay lacagtaas iyada ahay berrito ku bixi doonta idinkoo dhan sida caawa markhaati uga tihiin baad berrina markhaati uga noqotaa sidaa la'alligeed waan u soo qaadanay guddiga hadda qaybtood meesha joogto inay arrintan wadaaniin ay ilaa xad ka miro dhaliyaaniin annaga ayaa u ansixinay inay arrintaas hawshaa wadaan marka aad iyo aad baan dadka saas ah oo u huray ayagoo tii hore culayskaa ku haysa inay haddana tan horumarka ah oo dalka iyo dadka markii
wax loogu qabto horumar ay ku gaarayaaniin u huray aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa waxaanan leeyahay wax adduunkana idin anfaca aakhirana idin anfaca allah idinka dhigo lacagtan laga soo ururiyay shacabka Garowe ayaa la gelin doonaa tashi loo dhan yahay oo ay dadweynuhu ka qayb qaadan doonaan maadaama shacabka Garowe ay ahaayeen deeq bixiyaha waxaana wax lagaga qaban doonaa waxyaabaha ugu muhiimsan ee baahida caasimadda Garowe lacagahan waxa maamuli doona guddi gaar ah oo isugu jira aqoon-yahano ganacsato iyo culimo waa markii ugu horeysay tallaabo noocan oo kala dhinaca horumarka loo qaado Soomaaliya